caleenta yaree geedka ku taala waa warshadda ugu weyn ee dunida ku dul taalla uguna qayliya buuq yar soo moogida caleentu inay tahay waxa noolaha dunida kor saaran oo dhan quudiya waxa laaliya waxa kownkan aynu saaranay saaran maanta dhulkaynu saaranay saaran warshadda kaliya soo saarta waa caleenta yar iyana photosynthesis yar oo ay cadceedda inooga qabato ayay farsamadoo dhan ku samaysaa maalan casaanku spectrumkan badda markay biyaha nalku ku dhaco casaanku 18 mitir buu ku dhammaadaa dad minis 20 mitir haddaad badda quusto nabar kugu dhaco dhiiggaaga arki maysid waayo wax casaan la yidhahdaba kama jiraan yalowgu markaad 100 mitir gaadhaa buu dhammaanayaa greenka iyo buluugu waxay dhammaadaan maxay 240 mitir waayo iyagu waa kuwa photosynthesiska sida si dhirta baddu ay u baxdo ilaahay wuxuu ugu talagalay bini'aadanka iyo makhluuqa ku uuman dhulka oo dhan inuu geedkaasi quudiyo bini'aadanku wuxuu guud ahaan ka kooban yahay dhulku intuu ka kooban yahay boqolkiiba 70 bay raacaan ayaa biyo ah bini'aadanku 70 waa biyo ah boqolkiiba 70 kaasi biyihii waxa ay ku samaysmayaan oo ay ku noolaan karayaan waxay cunaan iyo waxay cabaan haddii caleenta ay la leeyahay makhluuq ku uumanaan kara dhulka dushiisu ama bini'aadan ama xayawaani ma jiri karaan waayo caleenta yar baa cuntada geedka u samaysa geedkaasi bini'aadankii ay meelaha ka soo saarayaan cunayaan oo xayawaankii kala cunayaan qusiru fil ardi fanduru kayfa bada al khalq ثم الله ينشئ نشأة الآخرة وحويان إلى النوع البارس أنا سمعنا وحويان قفل با ومسكح له أما قنيها ندي واجب القطع